wafdi horkacayo madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu gaaray degmada Xudur ee caasimadda gobolka Boqol. madaxweynaha Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa waxa socdaalkiisu ku helinayay qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wasiiro xildhibaano ka socda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa si weyn u soo dhaweeyay bulshada reedka ka dhaga degmada Xudur ee caasimadda gobolka Boqol. madaxweynaha cusub Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa ugu horreyn salaan sharaf ka qaatay ciidanka amniga degmada Xudur ayagoo isla mar ahaantaas ka sugnaa garoonka diyaaradda ee degmada Xudur. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed iyo gudoomiyaha gobolka Boqol Maxamed Abdi Tol ayaa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay ayagoo sheegay sida wacan ay soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. eedana macnaha aan ka faraxsanahay booqashadii markii kood madaxweynaha antii uu soo dooradii booqashadii kood maadaama uu gobolka Boqol uu saakweelay runtii mahad bilaaran aan jeediyaan u sii wafdiyay wasiiradiisa xildhibaanada dawladda dhexe dhammaantiin wariyaasha eedana siin salaamana salaan kadib kolleegeeka farxad wiinayaan intuuna haddii una ku turjumaana dadweynaha reer Boqol run ahaantii arrintaas eedaan ka faraxsanahay waa madaxweynihii muddada tuma maalmood ku yar madaxweyne ay booqashaneen kooy waa markii koowad madaxweyne oo nooca oo la kulmaana alxamdulillah ilaahay mahadus kule madaxweynaha dhawaaw adii wafdiha ka dhawaada magaalada gobolka Boqol Xudur eedaan ka faraxsanahay in booqashadii horeeytii madaxweynaha ninka kooy gobolka Boqol saas daraadii anoo ku turjumaa dhammaan dadweynaha gobolka Boqol way ka dhawaayeen gabagabadii waxaa goobtaasi ka hadlay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen isagoona faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisa ee degmada Xudur. Koreyti oo koonfur galbeed si doorashada indhiida uu noqoynay haytay gobolka Boqol ku bilaawni degmada Xudur ku bilaawni walaawna weelni wali waa hawal jaraw dadka Xudur iyo gobolka Boqol degan dad dawladeedu dad nabadeedu dad dawladnimada baahan dad dawladnimada sidaan ka dhaqso badan in deersin aan fadaano daruufo ka jar ogna si gooni yaan argi doon ururada bulshada la kulamaan dhalinyarada la kulamaan shacabka la kulamaan haweenka la kulamaan maamulka la kulamaan wala iyo qabaan ya warsadaan insha Allah waana wala ku qabado doono ururada bulshada si gooni aan argi doono tacliinta caafimaadka baro una fiiri doono ha kormeeri doono shacabka reer Boqol khaasatan degmada Xudur ya wali fadaane wala iyo qabaan iyo wala iyo kanooliin iyo wala iyo daruufta iyo haysata amni iyo caafimaad iyo walbarashada uu ogaan dibka iyo qabaan la qaybsana oo ilaahay roona wal ku qabana la shaqeeyna insha Allah eediyada ma hasantiin si guud ahaanna la hadli doona shacabweynaha Xudur wali ma nagay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo shacabka geeka dhan iriida surnaayay hana dhawaayay iyo kuleylata yaan ma nagay eediyada ma hasan guud ahaan madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa sheegay inuu guud ahaan socdaal ku soo mari doono deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Ibraahim Macalimow TV-ga caalamiga dawlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo.